السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يال سودواد ومقال عصوب iyo telefishinka Arda Cable TV ومقالka falanqaynta hordhaca kulamada wareegga fardhamaadka tartanka Champions League oo u dhexmari doona kooxaha Real Madrid ayaa martigelinaysa kooxda Manchester City ciyaar ka soo noqotay oo soo laabatay sidii xilli ciyaareedkii hore sidoo kale kooxaha Milan oo ka kala socda magaalada Milan Inter iyo AC Milan ayaa ku hirdami doona wareeggan iyadoo labada kooxood mid ahaan gaari doono finalka Champions League maqaalkan waxa la dadinayay la wada doona Cabdirasaaq Binde oo wariya ciyaaraha ونقول صح الله يوم مقالة هرقيسة عبد الساق وصل دور البرنامج كه عبد الله الماسن تاعي عبد الرحمن أو أدنى البروهيان لفقرنا كلنا في الحساب بدنا نروح يا ريال مدريد يقوى مانشستر سيتي عبد الساق ريال مدريد مانشستر سيتي سوى دكتورنا هي العيارات كهرنا هل كان أوكلا أيه كل مين يدو إن حسنا قاب كي عجيب كهاد ريال مدريد يقصوا جذبتي كوحدة مانشستر سيتي يعني waxaan xasuusnaa ciyaartii hore 4-3 waa laga adkaaday Real Madrid laakiin ciyaarta ma saddex iyo hal ayay ku adkaadeen maxaa iska bedelay labada kooxood kulankaas ilaa iyo imika yani isbedel maxay ku yimi Real Madrid sidoo kale isbedel nooceeya ayaa ku yimi kooxda Manchester City aad ma santo Cabdiraxmaan horta kulan aad u weyn oo kulan ay daawayaal fara badan ay sugayaan waa kulan xiiso gaar leh waa kulan isha lagu hayo Pep Guardiola tolow kooxda Man City markale ma ka soo muujin doona ciyaarta kama dambeysay Champions League carqalada Real Madrid ka isma dhaafi doona iyo toobrii weynaa ee khabiirka ahaa ee reer Talyaaniga isagana si dhaqanka u wahay ma dhaafi doona kooxda City iyo kooxaha kale labadan kooxood sanadka hore wan ogeyn kooxda Real Madrid ciyaar mucjisa leh oo runtii dadka ama ka gelisay waa kulankii garoonka Bernabeu ka dhacay ee kooxda Los Blancos soo dhaweysay kulankaas oo narkan wiilka reer Brazil daqiiqadii ugu dambeeyay sidoo naxiyay Pep Guardiola wali hal heese cajiiba ayaa laga hayaa Real Madrid uma naxariisatay wali markay kooxuhu Ingiriisku ay tagaan garoonka Santiago Bernabeu anigana waxay ugu ahayd 10 weyn oo ka qaadan doono kooxda Real Madrid waxa la heesay laga qoray kulankaas ciyaarta kadib laakiin waxa la isleeyahay wuxuu ku dagaalami doonaa hub oo aad in badan u diyaarsanayay niman in badan oo carbinay oo Kevin De Bruyne iyo Haaland oo isla qabsigoodu aad u qurux badan yahay oo runtii imika dharkana Haaland ee qaab ciyaareedkiisu inuu aad u cajaab yahay waxaan noqday ilaa imika 35 gool ayuu leeyahay Premiership waa ciyaaryahanka hal xil ciyaareed iyo 35 gool Premiership iyada laftigeega horyaalkii Champions-kana meel xiisa la ayuu lugta ku hayaa Haaland marka caawa Pep Guardiola iyo Ancelotti runtii ma sahlana Real Madrid koox sahlan maaha Real Madrid marka Champions iyo heesta muusiga ay maqasho wax badan baa iska bedela PSG oo Messi Neymar Mbappe Di Maria ciyaartooydaas oo dhan wadata ay runtii Real Madrid ka carabisay Champions-ka marka Real Madrid waa bay ka heshaabay ciyaaryahanada marka City iyo kooxaha badan baa dhaqaale noocaas iskiliya wali waxa Real Madrid safety soo dhisay taban isleeyahay marka labada kooxood waxa iska bedelay runtii ciyaaryahanadooda oo tayo wanaagsan leh iyagoo isku maxaa la oran karaa labada kooxood ay dhinac walba ay ka diyaarsan Real sanadkan oo arkana horyaalka ku guuleysan laakiin kooxda habeen baa ku guuleystay Champions-ka fardamaad bay taagantay laakiin kooxda Man City fardamaad bay taagantay Champions-ki final FA Cup bay taagantay sidoo kale waxa ay Premiership hirtan xoogan kaga dhaxeeya kooxda Gunners marka isbedel weyn ba ka muuqda la socdo sida sheegtay kulli kooxda Manchester City xilli ciyaareedkii hore waxay ku soo kordhisay goolaliyo weyn oo sida Erling Haaland oo kala ruhantii 15 gool dhaliyo record ka jabiyay horyaalka Premier League laakiin Haaland أول بما Manchester City ku guuleysan jirtay horyaalka Premier League yani tijaabada dhabta ah Erling Haaland laga qaadi karo waa kulamada Champions League soo soonahay kulankii Bayern Munich labadii logood ba si wanaagsan ayuu soo baxay Real Madrid ma ka dhalin doona oo kooxda Man City ma u hogaamin doona tartanka Champions League xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay kooxda Man City وسؤال هذا ونحسن horta Haaland inuu shabaq soo taabanay dad waxa weeyaan waa shaki kuma jiro iyadoo runtii qorshahay Real ku joojin lahaydna laga yaabo inuu waqti badan u geliyo Carlos Ancelotti laakiin Haaland inuu joojin karo maaha waa weeryahan cajaa'ib oo weeryahan si walba gool ku dhalin karaya wuxuu haystaa saaxiibo si wanaagsan oo caawinaya hogaamiyihii kooxda ayuu noqday laakiin inuu Champions-ku waa ku duwan yahay horyaalka Champions-ka taariikh baa la ciyaaraa wax badan baa iska bedela nimanka Real ma sahlan maaha nimankan waxa weeyaan labadii kooxi penalty baa u badan ka tahay qaadi karaan hadana kooxaha Talyaaniga oo aanay safe soo dhisan
haalan markaa dindu istaagno haalan isbedel wanaagsan waa uu ka sameeyay kooxda Man City qaab ciyaareedkiisa iyo tayadiisa uu ku soo bandhigay macallin wanaagsan gacanta ku haya waana macquul inuu geyn karo kooxdiisa final kula guuleysan karo waana u muuqataa marka la eego dadka khubarada iyo siday u saadaalanayaan sida loo rogayo haalan boqolkiiba 75 kooxdiisa waxa dhanka kale dooni madno kooxda Real Madrid xilli ciyaareedkii hore waxay ku guuleysteen horyaalka iyo Champions League sanadkan waxay ku guuleysteen Copa del Rey Real Madrid ma dhigi karayna awoodii sanadkii hore bay leedahay mise waxa la dhigi karaya noocan ma marka si loo eego way ka yara hooseeyaan tayadii ay xilli ciyaareedkii hore ay lahaayeen hoos dhac ku yimi Karim Benzema kale isbedelka ka sameeyay iyo Chouameni oo malaha de farqi tayo kale keenay Courtois on lahayn yani saameyntii xilli ciyaareedkii hore yani waxyaabahaas ma saameyn karayaan Real Madrid in ay dhibaato ku noqoto wareeggan ay kaga baxaan Champions League Real Madrid waa Real Madrid oo cidii ku soo gasho garoonka oo cidii ku timaado ayaa markasta go'aamiya oo kooxdana faa'iido u keena Real Madrid horta imka sanadkii hore sanadkaas ku mid maaha ku bidbudbihii ugu wanaagsanaa qaaradda Yurub aan aaminsanay ninka ka sameeyay la yiraahdo inuu yahay ayaa kooxdii gabihaanba macsalaamay oo kooxda Manchester United ayuu u digrabtay saameyn weyn ayuu ku yeelanayaa kitaankiisa kooxda Real Madrid waayo imika kooxda Real Madrid sidii hore maaha ku bidbudbiyaashu imika wiilkan reer Faransa runtii sidii Casemiro lama barbar dhigi karo xitaa looma dhaweyn karo Casemiro marka la eego qaab ciyaareedkiisa laakiin waxa la soo oran karaa kooxda Real Madrid daal baa ku yara jira kubadooda waxay isku biishubtay nimanka ninka la yiraahdo reer Brazil Vinicius Junior iyo Karim Benzema oo soo go'day cajayba oo ah xidig ugu wanaagsan marka qaaradda xidig ugu wanaagsan kubadda cagta oo sanadkii la tulun ku guuleystay marka kooxda Real Madrid inuu isbedel ku sameyn karo Carlos Ancelotti ma garan karo laakiin runtii sanadkii hore sanadkan farqi weyn baa u dhaxeeya sanadkii hore way ka wanaagsaneed kooxda dardar xoogan bay lahayd wadoogeed kooxaha Ingiriiska sida wanaagsan u dhigtay laakiin Real lama dhayalsan karo Real waa kooxda Boqortooyada waa koox ilaa imika 29 koob kubadda cagta haysata waa koox waxa weeyaan sanad ban hogaamiye oo lagu baxsanayo Karim Benzema Vinicius Junior wiilka reer Brazil Camavinga Valverde Toni Kroos Luka shaki ku jira de runtii kalsooni weyn baa kooxda ka muuqata difaaco kale aad u wanaagsan yahay oo waxa weeyaan Militao iyo Alaba oo kale ama Rudiger oo kale waxa weeyaan waa niman aad u wanaagsan laakiin Cabdisaaq xilli ciyaareedkii hore Real Madrid weyn hoogeen wax ka soo gudubtay markii hore Real Madrid kulankii Manchester City garoonkooda Santiago Bernabeu ayaa lagu dambeeyay marka laakiin waxa lagu dambeeyay garoonka Etihad Stadium yani kala duwanaanshahaas ma keeni karaysaa in Manchester City ay advantage u yeelato inay ka adkaato waa hagaag niyow daqiiqada ka hor baan isweydiinayay kooxaha Ingiriiska dib garoomada loogu dambeeyo waa halis weyn laakiin Spanish liftigu iyagu waa halis imika markaan aragno imika kooxaha marka la soo booqanayo Ingiriiska garoonka ugu dambeeyo halis bay dhigaan laakiin soo noqoshadu xitaa way fududahay imika kooxaha soo noqoshada ugu wanaagsan Ingiriiska marka laga hadlo kooxda Chelsea baa ugu wanaagsan championka xagga soo noqoshada marka waliba garoonka lagu ciyaarayo lugta labaad iyaga ugu wanaagsan oo imika Real Madrid oo kale ciyaartii dambe laba eber laakiin inta ugu badan kooxda Chelsea baa cagta ku haysay kubadda qaybta hore 2 gool ilaa 3 gool gaari kare dhalin kare laakiin nasiibku ma saamixin Liverpool nugnahay soo noqoshada aad ugu wanaagsaneed oo garoonka Anfield maxaa la Manchester United iyadoo koox soo noqoshadeedu ajaayib ku ahayd baa garoonka Old Trafford laakiin Man City iyada lafteedu koox imaka kor u soo kacay weeyaan oo koox imaka dunida la qabsanaysa sida championka qayb weyn ugu ahaan lahayd marka waxa laga yaabaa lafteedu inuu qayb weyn ka haato laakiin Real Madrid habeen dambe garoonka Santiago Bernabeu inay wax weyn ay ka keenaan ba macquul natiijo macquul inay kala baxaan laakiin hadii Etihad la isku tago City awood leh برضه مركز هربت السعودية وحاول تنجيلا مانشستر سيتي حليارات كرة مانشستر سيتي وتنجيلا وكوحدة عندي قارئنا وكوحدة أقول ما يسكتيرن يوروب لكن سنة كستا وحير أياك خلدما أما يعني جول بعد غدا قدام بيا لقدر ليا أما تحت كليهم بخلطات سمايان يعني وحوم بقى خلدما لكن سنة كان ملدي كرة مانشستر سيتي وصلنا يقول لما يسكترين يعني مددي أي كوحدة يبستي أبو دبي مددي بيب جوارديولا كوحدة وشيء وحليارات كقول لما يسكترين ملدي كرة وأي واحد شو كان فاينل كيف كاب كانوا يشوفون هوريال كانوا قاعدين تقول كتير تشامبيونز ليج أنا هير كان أي مريان
ha ugu wanaagsan sababtoo ah daymanka weeryahan fiican bay haystaan marka xitaa weeryahanka laga yimaado yani dhanka imka daafaca ay u adeegsadaan oo kale kubad qurxiyaha injineerka premiershipka ninka la dhaha Kevin De Bruyne oo dhashay xulka dalka Belgium difaacooda si wanaagsan isku haysta Pep Guardiola waxyaabaha aadka lagu amaano waxa kamid ah Stones difaacanka reer England oo difaac dhaxal ugu aamini jiray ayuu wuxuu baray inuu ka ciyaari karo kubad burburi Stones marka waxa la isleeyahay Pep Guardiola xil ciyaareedkan waa xil ciyaareedkii ugu wanaagsan kooxdiisa Man City waayahay haddii aan halka kaga nimaadno kulanka Manchester City ay marti ugu baxayso Real Madrid oo inuu nimaadno kulanka localka kulanka maxalliga kulanka kulmin doona labada kooxood ee isku wadanka isku magaalada isku garoonka AC Milan iyo Inter Milan horta marka guud ahaan la eego labada kooxood keeba yani chance wanaagsan inay soo gaaraan finalka Inter iyo Milan marka la eego labada kooxood AC Milan baa aad u chance wanaagsan runtii la soo karo waxay ku ciyaari kartaa khibrad waxay ku ciyaari kartaa sidii halkan ay ku timiyaan u sahlanin koox hore Talyaaniga soo reebto Napoli iminkana waxay maraysaa in ay AC Milan la ciyaarto marka waxa weeyaan waa koox u muuqan karta inay final ay tagto waa koox labada kooxood marka la eego waxa ku dambeeyay finalka Champions League marka la eego kooxda Inter Milan oo 2010 xiligaas Bayern Munich garoonka Santiago Bernabeu kula qaaday Jose Mourinho watay marka waxa يعني هدي waxa la sheegay in Rafael Leao kala dhaawac ku maqan yahay yani waxidiga ugu wanaagsan ee Simon lama dhigi karayna wali shaki buu ku jira saameyn inta lagu yeelan kartaa wararkii ugu dambeeyay Talyaaniga soo baxay waxa kamid ah wiilka reer Portuguese inuu ka maqnaan doono kulankaas taasna waxay dabar jibin weyn ku tahay kooxda AC Milan runtii tababaraha reer Milan AC Milan bal sidoo isku maareen karo iyo sidoo kulanka isku xalin karo wala eegi doona inkastoo ciyaaryahanka lafdhabar muhiim ah oo ahaa oo cabsi badan waxaan ku soo xatmeynaa yani saadaashaada waa maxay labada kooxood ee finalka isugu imanayo ra'yi ahaantaada waa kuwee saadaasha bariyahan Premiershipka aad baan ugu wanaagsan laakiin Premier League waxa dhigaray noocan ma uu fududahay Manchester City waa ugu adag wala dhigi karaya Premier League sanadii ugu dambeeyay way fududahay in la saadaaliyo laakiin championka adag la saadaaliyo waxa garoon sahlan ma aha labada kooxood ku dul furantay weeyaan waa laba kooxood wax gool iska dhalanaya ma hal mid loo dhigay every waxa ku dhamaan karta anigu waxaan isleeyahay kulankaas wuxuu ku dhamaan karaa 2 iyo 3 oo ku badan doonto kooxda Real Madrid waliba Real Madrid fursad ajaayib ay ka heli doontaan khaladaadka kooxda Man City laakiin Man City iyaga ismadihi way ku badan karaan laakiin guud ahaan teeda soo baxay soo ma finalka inay gaari karto ilaa waxa garoonka tacaad la tigay صح Inter Milan dhanka kale ayaa saadalanaysa inay soo gudbayaan Real Madrid صح waayahay dawadayaal maanta inta soo inooga yahay falanqaynta iyo hordhaca iyo tafatirka kulamada wareegga afarta tartanka Champions League waxay la wehelinayay wariye Cabdirasaaq Binde aad iyo aad baan walaalkaaga mahad celinaya waxaan rajaynayaa inaan marar kale oo badan aynu ku kulanno aad baan kaaga mahad celinaya sida wanaagsan aad igu soo casuumtay Cabdiraxmaan asxaabta kale ardaa saaxiibada kale daawanaya dhamaantiin waxaan leeyahay aad baad maasantiin aniguna waxaan aad ugu mahad celinaya saaxiibka farsamadayga caawiya Cabdiraxmaan aad baan kaaga qadnay dawadayaal intaas uu qolka noogu yahay waxaan kaga tageynaa tan iyo kulanti kale oo wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh